Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? ma jeclaa lahayn mi inaad bilaawdid inaad cabtid weird smoothies غريبة smoothie ereyga Soomaaliga ugu dhow isla waxa waaye mushakal oo waxyaabo kala duwan in la isku shiido yani and all within less than 1 month intaasoo dhan aad ku samayso wax ka yar hal bil we'd go for it in a heartbeat waanu samayn lahayn anagoo indhaheen isku xiran yihiin tana sidoo kale waa idiom sideeda looma fasiro laakiin macnaheedu taaganta waxa wax inaad samaysid adigoo ka laaban. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima iyo part 2 sheekadii inoo socotay. Intro ma kusii dheeraanayno fadlan haddii nagu cusubtahay nagu sabir channel subscribe deh video la gare una share gare asxaabtaada jecel inay bartaan luqadda Englishka aan bilaawno videogeena. And it made sense why people were starting to believe his theory. Why? Number 1, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. And it makes sense why people were starting to believe his theory. It makes sense. معنى ayay leedahay why people were starting to believe his theory. sababta dadka ay u bilaabeen inay u aaminaan fikradiisa ama theorygiisa. The number 21 is considered a short period of time. tirada 21 waxaa loo tixgeliyaa inay tahay waqti gaaban yani 21 maalmood saas uma dheera. And that's also considered a source of temptation. sidoo kale taasina waxaa loo tixgeliyaa inay tahay hawagelin gaaban. Temptation waa hawagelin qofkaan fahmaynin waxaa laga wadaa in qofka lagu dhaliyo ama la geliyo rabitaan uu wax ku sameeyo. tusaale ahaan he was tempted to sign the contract. waxaa lagu hawageliyey inuu contractiga saxiixo yani rabitaana la geliyo yani waa lagu qanciyey which means something you can do. taasi oo macnaheedu ay tahay wax aad samayn kartid. Number 2, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? The number 21 is also long enough to be believable. sidoo kale tirada 21 maalin waa waqti xogo dheer oo la aamini karo. yani laguma dhihin 3 maalin 4 maalin 21 maalin waa waqti xogo dheer oo isleedahay maybe waxba dhici kara. A difficult challenge but not impossible. waa challenge adag laakiin ma ahan mustaxiil. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? waxaan ula jeedaa who wouldn't love to change their whole life yaanan jeclaan lahayn in noloshooda dhammaan ay ku bedelaan within just 21 days kaliya 21 maalin gudahooda. Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? ma jeclaan lahayn in miya inaad bilaawdid inaad subaxdii xilli hore ka soo kacdid maalin walba? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? miyaadan jeclaan lahayn inaad bilaawdid inaad karisid cunto caafimaad leh? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? ma jeclaa lahayn mi inaad bilaawdid inaad cabtid weird smoothies غريبة smoothie ereyga Soomaaliga ugu dhow isla waxa waaye mushakal oo waxyaabo kala duwan in la isku shiido yani and all within less than 1 month intaasoo dhan aad ku samayso wax ka yar hal bil we'd go for it in a heartbeat waanu samayn lahayn anagoo indhaheen isku xiran yihiin. tana sidoo kale waa idiom sideeda looma fasiro laakiin macnaheedu taaganta waxa wax inaad samaysid adigoo ka laaban. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. So is it true? run miya? Can we really change our lives within 21 days? nolosheena ma ku bedeli karnaa 21 maalin gudahooda? I know that sounds very exciting. waa ogahay taas inay u muuqato inay tahay mid xamaasad leh. But there are actually few factors you'd have to consider. laakiin waxaa jira faktaro ay qasab kugu tahay inaad tixgelisid to be able to estimate the time it will take you. si aad u awoodid inaad qiimeysid waqtiga ay kugu qaadan doonto to form a new habit. si aad u samaysato caado cusub. Or get rid of an old toxic one. ama aad kaga takhalustid mid hore u jirtay oo samaysneed. Number 1 is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time
than if I want to acquire a complex athletic skill. Number 1 is the complexity of your goal. Numberka koowaad waa adkaanshaha goolkaaga. Complexity يعني adkaanshaha wax adag miya, wax fudud miya, heerka adkaanshaha yani. If I decide to start eating a fruit daily, haddii aan go'aansado inaan bilaabo cunida fruit maalin walba, which is considered a simple habit, taasoo loo tixgeliyo inay tahay caado iska fudud, I'd probably take less time. Waxaa suurtagal ah inaan qaato waqti ka yar than if I want to acquire a complex athletic skill. Haddii aan rabo inaan helo xirfad jireed oo adag. Athletic skill waxaa lahaa xirfado u baahan in jirkaagu uu xooganaado. Complexna waa adag. Acquirena waa helid. Yani markaan waxay isbarbar dhigaysaa labada goal, yani goal ah inaad cuntid maalin walba fruits ayaa ka fudud inaad baratid athletic skill ama xirfad u baahan xoog jireed. Waqtiga ay kugu qaadan lahayd inaad kasbatid caado ah inaad maalin walba cuntid fruitska ayaa ka fudud oo waqti yar qaadanaysa markii loo fiiriyo inaad baratid xirfad athletic ah oo jirka inuu xoogan yahay u baahan. Like a tennis serve. Number 2, behavior consistency affects the speed of acquisition. Like a tennis serve, sida tennis serve oo kale. Ciyaarta tenniska marka la ciyaarayo qofka tuurayo kubadda yar. Number 2, the behavior of consistency affects the speed of acquisition. Tan marka hore midmida u kala qaadayna kadib waa wada fasirayna. Behavior waa dhaqan, consistency waa joogteyn, affects saameyn, speedna waa taqaaniin, waa surcada ama degdega. Acquisitionna waxaa waaye inaad wax kasbatid ama aad soo iibsatid. Mathalan haddii caadata oo kale waa kasbanaysaa, haddii shay kale tahana waa soo iibsanaysaa. Haddii aan isku qabano waxay noqon doontaa marka micnaha meesha kasoo baxayo dhaqanka joogteynta ayaa waxa uu saameynaya surcada ama degdega aad ku heli lahayd caadada aad rabtid inaad kasbatid. Yani micnaheedu waxay tahay mar walba aad joogteyntaada ee badato waqti dheer waxaas aad samaysid, waa mar walba si degdeg ah aad ku gaartid la qabsashada ama inay ku noqoto caado. Iyadaa sii sharxayso aan sii galno. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day. Aniga haddii aan kusoo celceliyo dhaqamada qaar maalin kasto 3 daqiiqo is different than wuu ka duwan yahay my friend repeating the same behavior for 30 minutes every day. Wuu ka duwan yahay yani saaxiibadeeda haddii isla dhaqankii isla wixii ay kusoo celceliso 30 daqiiqo maalin walba. Yani meesha aniga 3 daqiiqo ugu soo celcelinayada haddii 30 daqiiqo ugu soo celceliso celceliskeeda maadaama uu badan yahay iyada iga horheli doonta caadada. In caadada la kasbado iyada iga hormari doonta. حرجينا إنها فهمتين وحر وأذكتها فكرة. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? So we want to clear things up. حاربنا إنها وح عدينو. Clear things up. وح عدين. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? meeqay nugu qaadanaysaa si aan u samaysano caado cusub ama aan uga takhalusno mid hore u jirtay? And is there a reliable study that we can depend on? Mana jirtaa daraasad la isku halayn karo oo aan ku tiirsan karno? Reliable la isku halayn karo. Study, daraasad ama cilmi baaris. Depend on ku tiirsanaasho. Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Our Habits Formed. Answer is yes. Jawaabtu waa ha. There is a famous study by the psychologist Philip Lally. Waxaa jirta daraasad caana uu sameeyey ninka psychologistaha ah ee loo yaqaano Philip Lally. Psychology waa cilmu nafsi, qofkii bartayna waa psychologist. Titled, ciwaankeeduna uu yahay How Our Habits Formed. Sidee caadooyinka ku samaysmaan? The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. The study followed 96 people. دراسadu waxay daba gashay 96 qofood over a period of 12 weeks. Muddo dhan 12 isbuuc. Each person chose a new 12-week habit to work on. Qof walba waxa uu doortay caado cusub oo ka shaqayn doono 12 isbuuc. Such as sida drinking 3 cups of water before lunch, in qadada ka hor 3 galaas oo biyo la cabo, or running for 15 minutes after dinner, ama in orod la sameeyo 15 daqiiqo cashada kadib. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task
to become a habit. After 12 weeks, 12 isbuuc kadib, the data was analyzed. Daatadii ayaa la falanqeeyay to determine the time needed si loo go'aamiyo waqtiga loo baahan yahay to move from the old habit si looga soo tago caadadii hore to start subconsciously carrying out the new one. oo aad bilowdid inaad caadada cusub u samaysid qaab subconscious lah. Subconscious waxaa lahaa conscious horta waxaa waaye miir. subconscious waxaa lahaa miirka meesha ka hooseeso yacni si miir la-aan ah si aan ulkac ahayn basically yacni inay caado kuu noqoto oo adigoo aan ka fikirin aad aragtid adigoo iska samaynaysid saas waxaa loo yaqaanaa subconsciously si aan ulkac ahayn. And after 12 weeks 12 isbuuc kadibna found that it took approximately 2 to 8 months. waxaan helnay ama ogaanay inay ku qaadanayso approximately ku dhawaad 2 to 8 months 2 ilaa 8 bilood in order for the task to become a habit si taskigu uu u noqdo caado. task waxaa lahaa howl lagaaga baahan yahay inaad samaysid howsha inay ku noqoto caado aadan ka fikirinba. And 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. And 66 days to be exact. iyo 66 maalin sida saxda ah. The difference in time it took to form a habit. farqiga u dhaxeeya waqtiga ay ku qaadanayso si caado loo sameeyo was largely due to the task itself. inta badan waxaa sabab u ahaa the task itself, shaqada la qabanayo markaas shaqada la rabo in caado laga dhigo, the person qofka caadada qabanayo, and their circumstances iyo xaaladahooda. As some were able to form a habit within 18 days. halka dadka qaar ay awoodeen inay caado ku samaystaan 18 maalin gudahooda, while others took 250 days. halka dadka kalena ay ku qaadatay 254 maalmood. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. So according to the psychologist Lally, marka loo fiiriyo psychologistaha Lally, if you want to know the time required to form a new habit, haddii aad rabtid inaad ogaatid waqtiga loo baahan yahay si aad caado cusub u samaysatid or get rid of an old one ama aad kaga takhallustid mid horey u jirtay, the truth is that you may need 2 to 8 months. runta ayaa waxay tahay waxaa laga yaabaa inaad u baahatid 2 ilaa 8 bilood and not just 21 days. ee ma ahan keliya 21 maalmood. videogeena maanta meeshaas ayuu ka egyahay. haddii aad jeceshahay inaad daawatid videogan oo wax sharaxaad lahayn waxaa ka heli kartaa playlistiga. waxaan idin sameeyey playlist hadda si aad u hesho ku dhufo channelka kasii dooro qaybta playlistiga kadibna ka dooro qaybta TEDx oo daawo videoga baroobe heerka fahankaaga. طبعا haddii ay jiraan waxa aadan fahmin waa kusoo laaban kartaa videogan. And as always, that's it for today. See you in my next video. Bye.